saaka waxaan isugu nimi saxaafeedkaygu uu daaran yahay waxaad arkayseen shalay social mediahana la dhigayey lacag $1 milyan oo ay ku dirtay dowladda federaalka Soomaaliyeed dhibaatadii ka dhacday xeebaha badda cas ee Soomaaliya oo dhan laakiin ay ugu dirtay si gaar ah maamulka Puntland maamulka Soomaaliland Puntland ma diidana in loo gurmado ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada ku dhacday laakiin waxaanu diidanahay una aragnaa lacagta $1 milyan ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka maaliyadda ay hormuud ka ahaayeen dowladda federaalka inay ahayd inaan lacag la bixin ee loo dhiibo hay'adaha khayriga ah oo dadkaas Soomaaliyeed lagu gargaaro ee dhibaatadu gaadhay laakiin Puntland waxay u aragtaa inay lacagtaas tahay lacag kaash ah oo farta laga saaray musabbixii maamulkiisa laguna dhibaateynayo dhibaatada ka taagan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ee Puntland anoo ku hadlay magaca xukuumadda dowladda Puntland waa cambaaranaynaa si cad baan u cambaaranaynaa adag waxay ahayd dadka haddii loo gurmanayo in hay'adaha khayriga loo mariyo ama dowladda federaalka u dhibto culimadii Soomaaliyeed ay u dhiibi jirtay dadka dhibaatadu gaadhay la gaarsiiyo laakiin uma aragno hadda inay tahay mid la gaarsiinayo waxaan u aragnaa mid lagu dhibaateynayo Puntland iyo shacabkeeda Puntland duufaantu waa ku dhufatay min bareeda ilaa Laasqoray waxaa degay 9 doonyood oo u raraa reer Puntland 7 ka mid ah mulkiyadeeda waxaa iska lahaa ganacsatada Puntland baa lahayd ilaa 40 doonyood ama laashash oo lagu kalluumaysto ayaa degay oo duufaantu qarqisay iyo shabakadoodii iyo waxoodii waxaa dumay 10 guri baa dumay oo Caluula bareeda baargaar intaba ku dhac oo ku dhufatay iyo Laasqoray inta u dhaxaysa waxaan u aragnaa in dowladda federaalku ay ku biirtay colaadda ka dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland ayna garab siinayso Soomaaliland taas ayaan u aragnaa waana cambaaraynaa sidaas baan u cambaaraynaa waxaan u aragnaa inaan dhex ka ahayn waxa arrimaha ka taagan Puntland iyo maamulka Hargeysa dhexdooda sida uu wasiirku sheegay lacagta $1 milyan ah oo shalay ra'iisul wasaaruhu dhiibay ku-xigeenku dhiibay ra'iisul wasaare ku-xigeenku markuu dhiibayay ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu yiri lacagta ayaa la siyaasadayn hadalka waxaan u aragnaa fariin aan munaasib ku ahayn xafiis mas'uul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo dhibaato gaadhay oo aan ka danqanayno dadkii masaakiinta ahaa ee halka ku dhibaatoobay $1 milyan iyo ka badan bay ka istaahilaan dowladda federaalka laakiin waxa la rabaa inay gasho gacan mas'uuliyadeed oo dadka gaarsiinaysa waxaan anagu u aragnaa lacagta kaashka ah ee si toos loogu dhiibay maamulka madaxda Soomaaliland inay noqon doonto ayna tahay lacag lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed waxaad la socotaan in haddeertan shalayna aan sheegnay in Hargeysa iyo bariga Burco ciidan laga soo guray oo loo soo wado in lagu xasuuqo deegaanka Sool $1 milyan oo niman hub gadanaya oo ciidan soo guraya markii ra'iisul wasaare ku-xigeenku gacanta ka saaro waxaad garanaysaan in lagu xasuuqay dad Soomaaliyeed waxaan ka xunnahay dowladda federaalka shacabka Laascaano lagu xasuuqay lagu xirxiray lagu laayay wali kama hadlin xamar waxaa ka jira ra'iisul wasaare iyo ku-xigeenno wali wadaniyad tiro badan sheegta waxaa joog guddiyo haweenno iyo saxaafiyiin madax bannaan sheegta waxaa joogo intaas markay hadlayaan ummadda Soomaaliyeed kelmadda Soomaaliyeed ku celceliya wali maanu arag hal qof oo shacabka Laascaano lagu xasuuqay war waa dad Soomaaliyeed ka daayay oranay haddii loo quuri waayay dhiigga la daadinayo reer Sool in madaxdii Soomaaliya ay tahay war ka daaya dadka waa dad Soomaali ee la leynayo ma istaahilaan in haddana $1 milyan lagu dul bixiyo lagu laayo fariintaas waxaan u aragnaa fariin aan wanaagsanayn waxaan u aragnaa mid dhiila leh waxaan u qaadanaynaa inay khad cas tahay oo calaamad xun ay anaga noo sheegayso saasaan u qaadanaynaa weli dowladda federaalku shacabka tukaraq laga barakiciyey kuwa Laascaano laga barakiciyey ee qaxootiga ah hay'ad Soomaaliyeed oo ka hadlaysa ma aragteen xafiis Soomaaliyeed oo ama wasiir ha joogo ama ra'iisul wasaare ha joogo ka hadlay ma aragteen hooyooyin Soomaaliyeed oo ka hadlay ma aragteen saxaafad Soomaaliyeed oo ka hadlaysa ma aragteen waxaad ogaataan reer Puntland inaad idinku isku tashanaysaan
cid idiin maqan male waa nasiib darro in maanta meeshii laydinka soo gurman lahaa oo reer puntland iyo reer sool loo odhan lahaa dadka qaxootigaayee ka soo barakacay tukarraq iyo laascaano ee guryahoodiina madaafiicdii lala dhacay ee la xasuuqay waxbaan u wadnaa meeshii la odhan lahaa in la yidhaahdo malyan baan weydaarinay oo hargeysaan ka dejinnay oo macnaheedu iyo rasaastiina ku soo gada haddana fariintaan fariin foolxumid haddaan nahay guddiga amniga puntland waxaan u sheegaynaa shacabka puntland calaamad cas u qaata arrintaa digniin u qaata cadaawad idinku soo socota u qaata waxaan kaloo u sheegaynaa dowladda federaalka haddiina waxba ummadda tarayn ha isku dilin intaasna waxaan leenahay dowladda federaalka